waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay si rasmi ah ugu furmay shirkii ayaha baarlamaanada dalka waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaasha baarlamaanada maamul goboleedyada ka jira dalka iyo kan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaana intii shirkii uu socday halkaasi hadallo ka soo jeediyay gudoomiyaasha baarlamaanada maamul goboleedyada ka jira dalka oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekh Qunameye waxaana hadaladooda ka mid ahaa sidatan runtii kulan soo sheegay waxa uu kulan wada tashay waxa waaye hadda waa shirmaan isweydiin wixii baahiyo jirta sidoo kale aan isweydiin waxa aan haysano intay leeyahay yihiin سيرو كالقيبسنا سيرو استعمالنا محايق نقمقا وحي نقمقا حكين وقمقا يسيسروا لأسنا حكين سيكون لأسنا وإنت أصنعك وضع تشنو أو وضع تشنو ممكن تصدق وضع تشنو حوالي قرامت كم حوالي نتيجة سوى بحسوحين وليسان مسقوط الشنو مكا نقع مسقوط الشنو وحوالي وإن شاء الله فرق هذا مفر أحسننا سوى قيبكي نتسوى قيبكي معنى متصوى كان نقع فضي بقوله وشيء سيعمل تقنين مقالة بيضاء إن شاء الله راح نجينا إن أي نتيجة يعني وتوضع على الفوضى إن شاء الله إن أي نستفيع عن الوصول معنا وتمشي على الوجه وبعد ما نرد والله نوصل وصيه إن أي ما كذا Somalia sidii ugu waday oo midnimadii iyo qaranka ugu burburay oo sharciga uga baxay meesha waxaa xaraaroday oo naftiisii maalkiisii adeegiisii waxoo waa baabixay ilaa iyo maanta waa dalqayahay haween baaba'aya malaha haddii marka aan ka soo cesho sharciga oo baarlamaanada masariyaxkiya maahan aysan ugu gelin fulintiisa gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari oo daahfuray shirka ayaa ka hadlay ayaha baarlamaanada dalka shirkan oo looga arinsanayo ayaha baarlamaanada dalka wuxuu socon doonaa ilaa 3 maalin ee soo socota Axmed Ibraahim Buule Bulsho TV Baydhabo